السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سدوا أصحاب غالية من كستود دونك كجوكتان. قصدنا ماتو waxay ka dhacday dalka Kuwait, waxay ku dhacday gabadh lagu magacaabo Xanaan waxay dhamaysay iskuulka sare markay dhamaysay Xanaan waxay bilowday jaamacad iyo xoog u faraxsan sida qof kasta markuu iskuulka sare dhameeyo u farxo jaamacad galayo tii ku faraxsan jaamacadii galayso saxaabtay yeelan doonto nolosha jididka bilaabin doonto waxbarashadeeda tii waxaa soo dhan ku faraxsan ayaa waxay gashay jaamacadii markay gashay waxay isbarteen gabdho guruuba oo jaamacadda dhiganayay gabdhihii bay isla saaxiibeen gabdhihii markay isbarteen gabdhihii waxay ku dhihi jireen markasta Xanaan adigu waxaa tahay dadkii hore ma tihid qof ilbaxa Xanaan isfurfur sidan wax isku dhaan isfurfur Xanaan waxay ku dhihi jirtay tii u qoslaysa in hadalkooda waxba ka soo qaadin markaa waxay ku dhihi jirtay anigu sidanaan ahaanayaa sidanaan rabaa ee idinka waxba idinma gelin waxba idinkamay gelin ee faraha iga qaada gabdhihii maalin waxay ku dhaheen Xanaan waxaan soo booqanaynaa gabadh saaxiibaday ah maadaama iskuulka jaamacadda waqti hore ka baxnay kaalay na raac Xanaan waxay ku tiri anigu gurigii baan tegayaa waan rawaxayaa maya ma rawaxaysid ee kaalina raac faamiligaguna ma ogaanayaan inaad meel tagtay ee waxay moodayaan jaamacadda inaad ka soo rawaxday kaalay na raac waa saaxiibadayo guriga saaxiibadeedan tegaynaa waan ku soo baraynaa joogana waan iska soo bedelaynaa waan iska soo baashaalaynaa kaalay na raac gabadhii markay ku celceliyeen Xanaan ee gabdhihii ku celceliyeen hadalkii way raacday Xanaan laakiin haddaanay raaci lahayn ayaa uga khayr badnaan lahayd Xanaan way raacday gabdhihii mid kasta waxay qaadatay gaadhigeedii markay mid kasta qaadatay gurigii baa la tegay gurigii markii la tegay ee albaabkii ay garaaceen waxaa naga furay ayay tiri wiil markay wiilkii naga furay waxay tiri waxaan galnay gudihii markaan galnay bay tiri waxaan ugu galnay wiilashii markaan ugu galnay waxay tiri waxaan ahayd meeshu guri madow oo xoog riixad foolxun foolxun ka urayso waan yaabay way tiri siday ii khiyaameen waanan u qaadan waayay markaan idhi gabadhii aaway waxay igu yidhaahdeen fadhiiso anigaa kuu sheegi doonee gabdhihii waxay tiri mid kasta 4 nin oo meesha joogay iyaguna 4 bay ahaayeen marka iyada laga reebo mid kasta nin ay hoosta ka gashay oo sigaarkii kala badbadasheen oo sigaar la wada cab waan yaabanahay bay tiri waan aamusay waxaan sameeyo ayaan garan waayay waan iska aamusay waxay igu yidhaahdeen adigu iska fadhiiso saalada anagu gudahaanu galaynaa gabadhii hayee baan idhi bay tiri saaladii baan iska fadhiyey meesha daaradda ayaan iska fadhiyey markaan daaradii iska fadhiyey gudihii bay galeen guriga gudihiisii markay galeen ayay tiri waxa dhacday bay tiri wiil ayaa ii yimiday wiilkii markuu ii yimiday waxaan moodayaa inuu isaguna saaxiibadiisa gudaha ku jira uu sugayo markuu wiilkii ii yimiday wuu isoo ag fadhiistay wuxuu igu yidhi naftaada ayaan u baahanahay waan yaabay waan istaagay
ayay tiri. albaabkii ayaan soo qabsaday. markaan bax isdhahay garabka ayuu iga qabtay bay tiri. wuxuuna igu yidhi haddaad baxdid yaa waan ku fadeexadaynay tu aadna filanaynin oo iska qomamayso noloshaada ayaa kugu dhici doonta. waxay tiri waan yaabay, waan istaagay. wuxuu igu yidhi aniga lacagtaydu bilaash maaha. adiga ayaa halkan cagahaaga ku yimid, adiga oo ka raaliya ayaa timiday. qofkuma soo qasbin, adaa gurigayga yimiday, cidina kumay soo qasbin. marka aniga waxaygu lacagtaydu bilaash maaha. saaxiibadaha waxay igula heshiiyeen $300 ayay iga qaateen. waxay tiri waan yaabay, dhulkii ayaa iqaadi waayay, waan gariiray. waxaan ku idhi bay tiri saaxiibadahay ayaan weydiinayaa, anigu marnaba hadalkaaga ma rumaysanayo. sug. albaabkii ayaan garaacay. haddaan albaabkii garaacay wuxuu igu yidhi cid ma joogto meeshan, aniga iyo adiga qofaan ahayn ma joogo. waxay ka baxeen ayuu igu yidhi albaabka dambe iyagoo dhan. waxay tiri naxdin looma dhinto, cagahaagu marmar ayay balaayo kuu geeyaan. saaxiibado xunxunna faraqa kuugu xidhaan, wadka qomamayso. waxay tiri waxaan sameeyo ayaan garan waayay. hadalkiiba igu dhigay, waan yaabay. wuxuu igu yidhi waa inaad samayso waxaan anigu kaa dalbado. waan aamusay bay tiri. waan yaabanahay, waan berberiyey. waxaan igu yidhi bay tiri haddaba waxay tiri waxaan leeyahay goorma ayuu kugu soo boodi doonaa ninkani? waan naxsanahay, garabka ayuu igu leeyahay haddaad baxis tiraahdid maanta way kuu dhammaatay. waan iska baryabariyey bay tiri. ilaahay ayaa sharkiisii iga kaafiyey. wuxuuna igu yidhi haddii aad rabtid inaad nabad meeshan kaga baxdo waxaad samaysaa lacagtaydii ii soo celi. waxaan ku idhi bay tiri haye, laakiin ma haysto imika lacag. waxaan haystaa lacag $20 oo keliya. isii 2 cisho ii qabo si aan lacagtaada kuugu soo celiyo. wuxuu ku yidhi waayahay, laakiin waxaad ka tagtaa sharcigaaga. warqadna ii qor si aan u ogaado inaad waxayga ii soo celinaysid oon kuu aamino. warqadana saxiix. way samaysay intii oo dhan. alxamdulilaah bay tiri. ilaahay wuu iga soo furfuray, meeshii salaamad baan kaga soo baxay. markay sidii samaysay waxay tiri maalintii dambe ayaan jaamacaddii tegay. waxaan arkay bay tiri markii say arkeen naagihii i iibiyey ee igu iibsaday $300. waxay tiri oo qosqoslaya, naftuba kama baxdo. waxay tiri maba is ogey xanaaq inta madaxu i kacay ayaabay tiri mid ahaan kuwii madaxa fujiyey dhagax intaan qaatay. dhiigeygii baa istaagi waayey. markuu dhiigeygii istaagi waayey een madaxa qarxiyey ayaa la i ashkateeyey. jaamacaddiiba laiga ashkateeyey, mas-uulka laiga ashkateeyey, ninka jaamacadda haysta. markii la iga ashkateeyey waxay tiri waxay noqotay jaamacaddii in laiga eriyo. waxay tiri ciil looma dhinto. naago xunxun oo dadka ka ganacsanaya ina jaamacadda dartood laiga eriyo way igu adkaatay. waxaan sameeyona ma garanayo. reerkeygii waxaan u sheego ma garanayo. ma dhihi karo jaamacaddii
ayaa la iga soo eriyey. Waxay tiri maalin kasta guriga waan ka baxaa, waxaan iska dhigaa qof jaamacadda tegaya aniga oo ka baqanaya haddaan reerkayagu u sheego inuu halkaa mashaakil iiga yimaado jaamacaddana laiga istaajiyo. Waxay tiri maalin kasta waxaan tagaa badda, waan iska ag fadhiistaa, markay dhammaato waqtiga jaamacadda laga soo rawaxayo la gaadho gurigan ku noqdaa. Muddo sidan sidii u ahaa ayaa waxay tiri gabadh iyadana jaamacadda nala dhiganaysay oon kuwan ka mid ahayn ayaa isoo wacday oo igu tiri Xanaan, waxaan kuula hadlay aabbahay oon u sheegay arrintaadii. Aabaheed wuxuu ii sameeyey kuwii jaamacadda ayuu iila hadlay, uu ii baryay. Aabaheed wuxuu ahaa gabadha nin magac leh oo magaalada laga yaqaano, laakiin gabadhani may ogeyn inay naagahani guri niman joogaan igeeyeen ama sababta dhagaxa aan ugu dhuftay waxay ahayd qof Ilaahay ii soo diray uun. Waxay moodaysay dad aan isku dhacnay oo keliya. Alxamdulillaah, jaamacaddii waan ku noqday anigoo ku faraxsan oo moodaya mashaakilkii inuu intan ku dhammaaday. Maalintan jaamacaddii tegay ayaa waxa igu soo yaacay naagihii. Markay maqleen Xanaan way soo laabatay. Waxay igu yidhaahdeen lacagtii ayuu rabaa wiilkii. Waxaan ku idhi lacagta idinka ayaa ka cunay wiilka, ord oo siiya. Waxay igu yidhaahdeen ma bixinaysid miyaa? Lacagtii waa lagaa rabaa, ma bixinaysaa mise ma bixinaysid? Way ii hanjabeen. Waxay tiri waxaan xasuustay inuu ninkaasi iga hayo sharcigaygii, warqadna u saxeexay. Waxaan ku idhi markii dambe waan bixinayaa, iga soo qaada warqadaydii iyo sharcigaygii. Waxaan tegay suuqa, waxaan soo iibiyey silsilad dahaba oon lahaa. Waan ku iibiyey lacag xoog u hooseysa, qiimo xoog u jaban, laakiin tantaa igu kalifaysa oo familigayga waxba uma sheegi karo. Jaamacadda waa laiga joojinayaa haddaan u sheego oo waxba baran maayo. Waxay tiri maalintii dambe waxaan keenay lacagtii. Anigoo sidaa u furay shandadii ayaa la igu yidhi ma nus ayaad u bixinaysaa mise waad wada bixinaysaa? Maya, waxaan ku idhi mar keliya ayaan bixinaya. Waxaa la igu yidhi waxa weeyaan lacagta $3,000 iyo $250 marka dollar ahaan loo bedelo, laakiin lacagtu diinaar bay ahayd iyaga ay markii ku qaadeen. Waxay ku kordhiyeen sirooyo ayay ku kordhiyeen, marka lacagtii saasay 3,000 iyo dheeraad uga dhigeen. Waxay tiri waa naxay, waxaan sameeyo ayaan garan waayey. Markaas ayaan waxaan sameeyo markaan garan waayey waan dhaqaaq joogsaday. Waxaan tegay meesha ugu dhow askarta, waayo anigu maana isku goynaya xageenka keenaya. Askartii markaan u tegay ayaan u sheegay askarigii wax kastoo jira iyo wax kastoo say u dhaceen, aniga oo xoog u ooyaya oo qalbi jabsan oo kule reerkeyga ha ii sheegina, waan idin baryayaaye. Waxay i weydiiyeen ninka gurigiisii iyo naagaha telefoonadoodii ayaa la i weydiiyey. Waa la soo qabtay ninkii, anigoo meesha jooga ayaa la keenay. Wuu qirtay wax kasta. Naagihii waa la doonay, waa la soo qabtay. Tii ii hanjabtay
maalintii hore waa la waayo, guriga kamay soo bixin. Gurigeedii ayaa loogu tegay, waxaana loogu tegay gabadhaas wax kasta oo mukhadaraad la yiraahdo iyo xashiishad iyo wax kasta oo mamnuucaada, gurigii ayaa loogu tegay. waa la soo qabtay, iyadana waa la keenay. Aabahayna waa la ii sheegay oo waa loo yeedhay. Aabahay wuu yimiday, laakiin waxba imuu dhihin, imanuu dilin, imanuu canaanan. laakiin sababta dadkaas waxaa la iiga joojiyey jaamacadeydii, oo waxa lagu yiri maanta kadib guriga ka bixi maysid. Ninkii waxaa lagu xukumay 5 sano, iyadana waxaa lagu xukumay 10 sano inay dadka iibiso, inay waxaasoo mukhadaraadii mamnuucaadka iyo balaayadaasoo dhan iibiso, dadkana ka ganacsato, jaamacadda ka kaxayso ayaa lagu xukumay, lagu soo rogay xukunkeedii. waxay tiri Xanaan, qalad yar ood samayso wax badan ayuu noloshaadu ku kalifaa. waxay tiri hablaha gabdhaha markasta waxa lagu qasbaabay tiri saaxiibadahooda wax la dhiganayaan, yiraahdaan matihid qof ilbaxa, isfurfur, waxaan samee, oo sigaarkan caab, oo kan samee. waayo iyada markay meesha tagtay sigaarka waxay u sheegatay mid kamid gabdhihii inaanu sigaar caadi ahayn uu wax ku jiro, oo iyadana markii lagu yiri cab way diiday. marka waxay tiri dhibaatada oo dhan waxay ii geysatay ee jaamacadeydii mustaqbalkayga khasaarisay saaxiibado qaldan oon doortay. waxaa jira bay tiri gabdho badan oo saas iyo ka badan ku dhacday. qaladkaygu wuu yaraa, laakiin wuxuu ii kalifay wax badan. waxaan idin rajaynayaa bay tiri inaad ka digtoonaataan oo waxyaalahaasoo kale aad iska ilaalisaan. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi.